Education Platform. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan bilaabeynaa kuna soo dhawaada kaalinka waxbarasho ee qalam ad uga barateen macallimiin iyo casharo dhammaan muhiim ah. maanta waxaan ku jirnaa sayniskii cutubkii 9aad waxaan ku jirnaa casharkeeni labaad waa noocyada burjiko dhuxuleedka iyo adeegsigooda. burjikooyinka waa yaqaanaa wax lagu koosado girgiraha af Soomaali qaar laha burjikada qaar dhuxul baa loo isticmaalaa qaar waa biro kuwaas iyo noocyadooda iyo sida ay dabka u hayaan ama wax u dhaqaaleeyaan aan fiirino burjikada. casharkeenaas aan qaadanayna casharka labaad noocyada burjiko dhuxuleedka iyo adeegsigooda. waxqabad waxaan isba bardhigayaa laba burjiko oo ka muuqata sawirada hoose labada burjiko isba bardhig burjikooyinkan burjiko xadiid ah burjiko dhoobo ah burjikada caadiga ah ee waxaan isku fiirinayaa markaan burjikooyin isba waqtiga karinta yaa dhaqso badan waqtiyada karinta xadiga dhuxusha ay isticmaalayaan mid waliba burjikooyinkaas waa noocyadaas kala duwan. ilaa hadda burjikooyinka aan soo qaadan ilaa 3 burjiko weeye laakiin marka aan burjikooyin isba bardhigayno waxaan arkaynaa qaar waa burjiko bira ka samaysan qaar waa dhoobo qaarna waxaa laga sameeyaa dhagaxan loo yaqaano gypsumka ceelbuur iyo dhulkaas iyo meelahaas laga soo jabiyo gypsumka dhagaxa adag oo cad laga sameeyo iyo burjiko caadi ah oo casriga ah. marka dhammaan waxaan ka fiirinaynaa yaa dhaqso u kariya yaa kulka xoogaa wax dhaqaaleynta ku fiican dhuxusha iyo dhaqaaleynteeda ku fiican ilaa in wax dhaqaaleeyo dhuxusha oo dhaqaaleeya geedaha oo dhaqaaleeyo way geedaha oo dhaqaaleeya deegaanka oo dhaqaaleeyo way deegaanka oo dhaqaaleeya xoolaha oo ilaa dadka dhexdooda wax tarayaan. marka waxaan isbarbar dhigayaa laba burjiko ka muuqda sawirada hoose aniga iyo oo fiirinaya waqtiga ay karinta ay qaadanayso xadiga dhuxusha ay isticmaalayaan mid walba. burjikooyinku waa 3 burjikada xadiid ah waa bir burjiko dhoobo ah ama ka samaysan geedkan loo yaqaano dhagaxa loo yaqaano gypsum midka caadi dhagaxa ee burburaya ee ka muuqata dhagaxa gypsum ama burjikada casriga ah oo ujeeda 3 burjiko mid soo qabo burjiko xadiida bir ah. burjikada xadiidka waxa dhinacyadeeda iyo waxa ay burjikada xadiidka waxa ay dhinacyadeeda iyo godkeeduba ka samaysan yihiin xadiid. godkeeda dhinacyada kulli waa bir kulkuna si kaahid ama gudbid ahaana ayuu uga bixi karaa maadaama ay bir tahay kulku waa sii deynaysa. burjikada noocaan ah waxay u baahan tahay dhuxul badan si kulku u wada gaaro. horta burjikadu waa bir bir gudaheeda iyo dabooleeda si hadhow wax u kululeysa waxaa u baahan tahay burjikadu ay wada kululaato oo iyada lafteeda kulka hesho waa qaar garanay burjikada. waxaa kaloo marka imaanaya kuleelka iyada banaanka ay ka kululaanayso kul bay dhuminaysaa kul hadduu banaanka u dhumana kulki waa yaraaday. marka waxaa la fiirinayaa burjikada samayskeedu muxuu ka duwayaa dhaqsaha iyo dhaqaalaha labadaba. waxaan dhahnaa burjikada xadiidka waxa dhinacyadeeda iyo godadkeedaba ka samaysan yihiin xadiid kulkuna si kaahid iyo gudbin ayuu uga bixi karaa. burjikada noocaan ahna waxay u baahan tahay dhuxul badan iyo kul wada gaaro. kulka waxaa loo gudbiyaa waa taqaanaa meeqa siyood baa kul loo gudbiyaa shayga kulki inuu gudbin noqoto shayga inta la taabsiyo uu gudbo waa mid kaahin inuu kulka ku baxo kaa baxo مثلا dab baa xagga yaala kulkiisa ku soo gaaraya qaabkee waa kaahin iyo inuu kulku yahay qaabka saddexaad in qoraxda nagu soo gaarto qal waxa kale imaan kara biyaha oo kale kulka biyaha waxay sameeyeen islaba rog ayagana marka hadda anaga midna khusaysa waxa waay kaahinta
kulka inuu ka gudbo adoo meelka marka shayga kulkiisa soo gudbay waa dhuminaya intaba. burjikada dhoobada ama jibsanka waa burjiko dhaqameedkeed Soomaalidu taqaanay oo dhoobana ka samaysan, qaarna waxay ka samaysan yihiin jibsan, waxay inaayadeeda iyo godkeeduba ka samaysan yihiin dhoobo ama jibsanka. kulkuna si kaahid ah ama gudbin ah ayaa asna waa baxo iyadu waa dhagaxa ama waa dhoobo waa xishinaysa waxeedii. burjikada noocaan ah waxay u baahan tahay dhuxul yar oo meel ay ku fiican tahay. tii hore haddii la barbar dhigo isu fiiri, tii hore kaahin buu ku baxay, tan waxay kulka si kaahid ama gudbin ah ugama baxo, halka waa uga fiican tahay. burjikada noocaana waxay u baahan tahay dhuxul yar, meeshaana tii hore uga fiican tahay si uu kulku u wada gaaro. burjikada dhoobeedku waxa ay leedahay dalool, meel hawadu ka galo way leedahay, meel uu dambasku ku ururana way leedahay. qiiq badan ma samayso, dhiskeeda ogeedsa u samaysan tahayna qiiq badan ma samayso. dusheeduna dusheedu waa ay kulaataa oo waxaa ku lumi kara kul. dusha banaankana kaah way ku dhumin kartaa wax iyadu dhinacaas laga fiiriyo. isbarbardhig marka aad shay fiirinayso labadii qodobadii isku ku fiiri. qodobkan koowaad ma ku fiican tahay xagga waqtiga karinta, dhuxusha dhaqaalaheeda say ku tahay. burjikada xadiidka waa sheegnay, burjiko dhoobadna waa sheegnay. burjikada casriga ah ee jikada, burjikada noocani waxa ay samaysan tahay bir, waxa ay leedahay god yar, god yar salkeeda hoose waxa ay leedahay shabaqa ku yaala ee ka baxo dambasku, waxa ayna dhinac ku leedahay qaanad dabool leh oo hawadu ka qaadato. burjikada noocana waa midda ugu dhuxul cunista yar. kulkana si kaahid ama gudbin ahaana ugama baxo. waa kasi tii hore hadii la fiiriyo ma kaga fiican tahay. isbarbardhigaas u fiiri marka maadaama mid walba naloo sheegay, haddii hadhow lagu yidhaha isbarbardhig, waxaa isku barbardhigtaa gudbinteeda, 2 dhuxul qaadashadeeda, 3 dhaqsaheeda, kulubinteeda. inta 3 isbarbardhig. su-aalaad timid isbarbardhig 3 midda dhoobada ah, midda oo ah maaragtay xadiida iyo midda casriga. isbarbardhig adoo ka fiirinaya kuluminta, dhuxul dhaqaaleynta, kaahinta ay ku lumiyaan, waqtiga dhaqsihiisa. hadda casharka waa qaadatay ku ceeli casharka. isbarbardhig. ardayga wax fahmaa waa midka isbarbardhigi kara. haddii uu sheega barbardhig, haddaad aragto arday isbarbardhigaya casharka waa fahmay. laakiin tanna waa xafiday, tanna waa xafiday, haye maxaa kaloo la xafidaa? may isbarbardhig. waxaa gunaanad soo xoorinaa wixii aan soo marnay cutubkan oo ka koobnaa 2 cashar. midka hore ah kaydinta kulka iyo midkan labaadoo ah sida loogu adeegsado burjikooyinka. soo ururi oo soo gaabi. haddaad ila soo casharka faahfaahsanaa nuxurkiisii waa kana. cutubkan waxaan kusoo baratay kulku inuu yahay nooc ka mid a tamarta oo muhiim u ah nolosha, lagana helo qoraxda. kaydinta kulka ay muhiim tahay aan soo baranay, loona kaydiya habab kala duwan oo ay ka mid yihiin in la isticmaalo soolarada, tarmuusyada, qaboojiyayaasha iyo wixii lamida. in ay jiraan 3 nooc oo burjiko ah, kuwaas oo kale ah burjiko xadiid, burjiko dhoobeed iyo burjikoda casriga ee jiko, kuwaas oo ku kala duwan waqti karinta. xadiga isticmaalka, xadiga waa qadarka inta uga baahan tahay dhuxusha iyo luminta kulka. 3 ka fiiri. waqtiga waxaa u baahan waqtiga intuu dhuminaa waqti waa midda kale xadiga dhuxusha iska dhe igu xusuusi dhuxul intay u baahan tahay. ugu dambayn luminta kulka, lumin. 3daas ka fiiri. 1 2 3. halkan waa layli. casharkii waa soo garatay, waa soo fahamtay. ogow intaadan layli ka shaqaynin casharka iska soo akhri. casharka haddaa soo akhriso oo soo fahamto, layli asagaa kala daatay. nin baa waxaa laga sheegayay
aad u oomanaa ma maqashay nin aad u oomanaa oo safar ku yimid ayaa meel wuxuu yimid balli weyn markaasuu yidhi soo ciil u qaba meel balli biyo fadhiyaan walle haddaan afka ku saaro geesaha waa ka soo ururaysaa taasaan kaa rabaa casharka mar haddaad qabato inuu geesaha ka soo ururo laakiin maxaa ka horey waa inaad fahamtaa horta baahideed ma qabta inaad fahamto waa qabaa casharkaas mustaqbalkaada wax badan ku tari doonaa haddana wuu ku tarayaa layliga intaana ka shaqayn casharka meel iska soo saar qof kale su-aalaha weydiinin cid kale ha loo noqonin hadhihin su-aasha koowaad buugga iisoo gedi buugga maya meel soo saar markaad ka wada shaqayso labada iyo halka ugu adkaada buug ula noqo markaas layliga waxa aan ka jawaabayaa su-aalaha soo socda waa maxay muhiim u tahay in la kaydiyo kul maxaa loo kaydinaa kul lagu falayaa labo sidee hadda kulka loo kaydin karaa waa laga raba sheeg farqa u dhaxeeya burjikada casriga ah iyo tii hore oo la isticmaali jira dalka sheeg farqa u dhaxeeya burjikadeena dhaqameedka iyo burjikada casriga ah sidee burjikada casriga u kaydisaa kulka sharax sida ay kulku u kaydiyaan qalabyada soo socda siday kulku u hayaan tarmuuska kululeysada cuntada 6 waa maxay sababaha burjikada loo horumarinayo maxaa keenay in burjiko la horumariyo in burjikada hadmarina war burjiko fiicanaha la soo saaro midaana midii ka fiican ina ay tafakartaa laga yaabo adiga inaad burjiko samayso qaabka ka fiiriso kulkaas ay u dhuminayso dhaqaalaha waxbaa qofku waxba ka fiirina shayga la rabo in la horumariyo marba shay baa lagu dhisaa dhaqaalaha dhaqsa karinta kul dhuminta ka fiiri mid adaa kugu hor u fiirsamaysayin adna waa samayn kartaa yaa kuu diidana wax samayso burjiko yar oo habaysan waa samaysan kartaa qofku waa samayn kartaa isku dayo laakiin waa inuu fahmaa sida ay u shaqayso su-aasha 6 waa maxay sababaha burjikada loo horumariyo cabaar waa ay dhageysatay su-aalihii waxyaalaha aan soo jeediyay waa aragtay soo doorkaagii ma aha miyaad daashay ma aada daalin maxaa u daalaysaa waa dantaadii waxay kaaga baahantay in yaroo loo dulqaatay kadibna casharkii la fahmay kadibna su-aalaha laga shaqeey nasiino xoogaa ama naso soo jimicso anna aan xoogaa soo nasto qaybta intaasaan ku nasanaynaa cutubkeenaas waa fahamteen. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.